الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسألة بان ربا إن شاء الله تعالى بشهر رمضان سوق الشيء أوجد إن أنكهد له مسألة داسنا وحويان إن يجرتوا ويدا دنبه dhalinyarada qaarkood ama culimadaba qaarkood oranhaya lama oran karayo ramadaan kariim. sababtuna waxay yiraahdeen kariim macnaheedu waa siiye ka wax siiyayna waa ilaahay oo kaliya ee ramadaan wax ma siiyo oo wax ma bixiyo ilaahay baa bixiya. marka saadaradeed yaan la oranin bay yiraahdeen ramadaan kariim hal la yiraahdo waxyaalo kale. arintaas ama hadalkaas markii la eego su'aasha koobaad waxa weeyaan sharciga ma ka soo aroortay, aayad quraan ma ku soo aroortay, xadiis nabi ma ku soo aroortay inaan la oranaynin ramadaan kariim oo wax ramadaan kariim diidaya sharciga ma ku soo arooray. hadduu ku soo arooray halanoo sheego, hadduuna jirinna asalku waa inuu bannaan yahay. taasi waa mid. talabaad sharciga waxaa ku soo aroortay waxyaalo badan oo iska makhluuq ahaa oo kariim lagu tilmaamay. fa maalan balqiis boqoradii la oran jiray markii uu nabi sulaymaan waraaq u soo diray, waraaqdii ay soo gaadhay hudhudku soo gaadhsiiyey boqoradii balqiis la oran jiray waxay tiri yaa ayuhal malow, iyadoo sheegaysa dadkii la tashanhaysay innii ulqiya ilaya kitaabun kariim. waraaqdii uu nabi sulaymaan soo diray waxay ku tilmaantay kitaabun kariim, waraaq sharaf leh, waraaq karaamo leh. waayo nabi sulaymaan wuxuu ugu baaqayay tawxiidka. marka halkan waraaq la soo diray oo waraaq iska ahaa bay kariim ku tilmaantay. ilaahayna muuna ku inkirin quraankiisu ku sheegay. marka taa waxay cadeen wax iska makhluuqaad ahaa in kariim la oran karayo una kariimku ilaahay khaas ku ahayn. waxaa kale oo soo aroortay nabigu calayhi salaatu wa salaam saxaabadiisa qaarkeed sida ku soo aroortay abu daawud iyo axmed ba inuu qaar ku yiri wixii ku gargaaray wuxuu ahaa malakun kariim, malag karaamaysan. marka saas oo kale macnuhuna marka waxa weeyaan malag yaani karaamo leh oo sharaf leh laga wadaa. balqiisna waxay ka wada boqoradaasi kitaab ama waraaq karaamo leh. ramadaankuna taa buu la mid yahayo kolka la leeyahay ramadaan kariim ma aha ramadaan yani wax bixiya oo wax siiye waxa laga wadaa waa ramadaan karaamaysan, waa ramadaan sharaf leh, waa ramadaan waxa weeyaan xagga ilaahay qiimo iyo qaayo kale baa laga wadaa. marka wax ku jaban ama sharciga ka soo horjeeda oo ku jirta ramadaan kariim ma jirto. marka wax dhibaato ahna ma leh. ciddii diidan waa inay keentay iyagu daliilka ay ku diidan yihiin. bal saxiixa waxaa ku soo arooray nabigu calayhi salaatu wa salaam in uu ku tilmaamay nebi yuusuf iyo aabihii yacquub iyo isxaaq iyo ibraahiimba. wuxuu nabigu ku tilmaamay calayhi salaam markuu durriyadda tirinhayay alkariimu ibnulkariim ibnulkariim ibnulkariim. marka macnahan ay leeyihiin ramadaanka ay ku diidan yihiin ramadaan kariim lama oran karo waayo kariim ilaahay bay khaas ku tahay. sawka nabiguba calayhi salaam ambiyada nin kasta ku tilmaamaya inuu kariim yahay.